kulankani ay soo qaban qaabiyeen ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka dhigta magaalada Cape Town ayaa waxaa ka qayb galay culimaaddin aqoon-yahano dhalinyaro Soomaaliyeed waxaana ujeedada kulankani uu ahaa sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiga ku haysta magaalada Cape Town sidii ugu faa'iideysan lahaayeen waqtigooda iyagoo lagu dhiirigeliyay inay wax bartaan isla markaana ay maalgashadaan dalkooda waxaana kulanka lagu casuumay kana qayb galay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka dhigta dalkani ayaa isu xil saaray sidii ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta ganacsiga Soomaaliyeed iyagoo keenay madasha kulanka ka dhacayay qodobo muhiim ah kuwaas oo lagu dooday waxaana qodobadaasi ka mid ahaa sidii Soomaalida naftooda ganacsigooda iyo jiritaankooda iyo waliba diintooda ay u ilaashan lahaayeen iyagoo sidoo kale soo bandhigay qaabka ugu fudud ee loo dhexgeli karo bulshada ay la nool yihiin waxaana qodobkaasi ka hadlay ganacsade Cabdullaahi Cali Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town taa waxa la jeedaa annaga marka wadankan nimid oo maalinta ku timid home faris ka tagtay oo warqad lagu soo siiyay warqada ku qoranta bill of rights oo saxiix sheegay waa shaqaysan kartaa waxna waad baran kartaa lagu qoray waa baxday waxa aaday tuulooyinka waxa ka tali odayaal dhaqameed ka taliyaan waa sidii Soomaali baadiyada kale odayaasha marka u tagtay habeenkii waxa tagtay ka soo qaadnaa subax tagtay qof guriga ka reesatay maalinta kale galabnimo ku soo guurtay subax waxa lagu arkay inuu dukaan ku furay odayaasha xaafadda kuma yaqaanaan guriga kugu dhagan kuma ogo nima meesha soo jeedo isla maalinta waxa la waxa ku yimid muxuu yahay who is he what is he doing sheeka bilaabay habeen ku xigaan waxa lagu falqeynaa meesha qamriga iyo sheekada waqti wuxuu yimid inuu xoolo naga dhaco lacag inuu qaato iyo waxaas waxaan qabaa maadaama laga hadlayo education kasoo la sameeyo bulshada dhexgalaa qodobka koowaad aan khaladin inuu ka yahay aniga tijaabo aan sameeyay jirto arinta la xiriirto markii kulanka soo idaaday waxa TV-ga caalamiga Universal la hadlay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape Maxamed Xasan Cali wuxuuna sheegay in si wadayaan kulamada noocan oo kala ah waxaana kulanka xiga lagu casuumay Sheekh Maxamed Cabdi Umul iyo qoraaga Soomaaliyeed Nuurdiin Faarax barnaamijka aan qabanay waxaan ugu magac darnay aqoon kororsi oo bishii mar aan qabano aan bulshada Soomaaliyeed ee Cape Town gaar ahaan ku nool South Africa aan ku wacyigelino hadba markaan aan isdhaano mowduuca markaasi ugu macquulsan bil walba waa qabanaa waxaan ku casuunaa rag aqoon-yahano culimo odayaal wax garad ganacsato intaba ku casuunaa taasna waxay kuleyba ay faa'iido u tahay bulsho badan oo ku nool gobolkan Western Cape oo yani wacyigelintu aad ugu liidato marka waxaan isleeyahay barnaamijkan wax badan ayuu bulshada ka qayb qaatay horumarkooda Maxamed Musa Nuur Degdeg Universal TV South Africa